waxaan baran doonaa habka loo buuxiyo selska. Haddii tusaale ahaan lagu yiraahdo waxaad noo diiwaan gelisaa magacyada ardayda iyo natiijooyinkooda. Marka hore arday walba waxaan siinaynaa ID number, aan dhahno ID number iska soo gaabsano. Qaanadan amaba selka markaan ku dhufto waa aan ku qori karaa wixii aan doono. Haddii aan double click siiyo waan edit garayn karaa, marka anigoo isticmaalay falaaraha aadba dhinaca aan rabo ayaan u wadi karaa. Fadlan aan idin weyneeyo si aad u wada aragtaan. Zoom waan isticmaalayaa, waa kan aad u jeedo, sidaas ayaan u wadi. Haddii aan enter riixo waxaan u gudbayaa dhanka hoose, qaanada hoose ee midan ku xigta. Enter saasaad ku wadaysaa. Haddii aad doonto inaad kor u socoto waxaad riixi kartaa sidoo kale shift enter, waxaad u noqonaysaa kor. Sidoo kale falaarahana waad isticmaali kartaa. Tusaale ahaan haddii aan doono inaan aado dhanka midig waxaan riixayaa tab. Keyboardka haddaad fiirido waxaa ku yaala number la yiraahdo tab, kaas ayaan isticmaalayaa. Haddii aan shift tab riixana waxaan kusoo noqonayaa dhanka bidix. Shortcut-yadan waa muhiim si aad si degdeg aad ugu buuxiso aad ugu shaqeyso Excel. Marka haatan waxaan qoraynaa nambarada, tusaale ahaan 1 2 3 sidaas ayaan ku wadaynaa. Sidaad u jeedaan haddii aan kusoo laabto selkan aniga oo aanan double click riixin oo aan qoraal bilaabo waa uu isbedelayaa waxaa ku yaala halkaasi oo dhan. Balse haddii aan double click siiyo waa aan kusii dari karaa isla wixii meesha ku yaalay. Marka sidaas ay ku kala duwan yihiin. Selka inaad click siido hal mar iyo inaad laba click siido waa kala duwan yihiin. Okay, haddii aan doonayo in aan dad aad u fara badan aan diiwaan geliyo halkan oo aanan doonayn inaan hal u qoro, automatically nambarada sequence ku socda si safa ku socda waxaan adeegsan karaa wax loo yaqaano autofill handle oo uu leeyahay Excelka. Autofill handle kaasi waxa uu noqonayaa marka aad sidaa u doorato waxaad aragtaa meeshan in calaamad yar oo hoose, haddii aan idin weyneeyo waxaad u jeedaan calaamadaasi haddii aan ku dhowaado waxaan arkayaa in plus-tani ay madow isku bedelayso ayna yaraanayso. Markaasi haddii aan sii qabto aan hoos u jeedo ilaa inta aan rabo aan geeyo, xataa aan kasoo qaadno 145, waa kaa sidaas ayuu ku wadayaa. 144 saf waaye, sababtoo ah waxaan kasoo bilaabnay safka labaad. Sidaas awgeeda waxa uu inoo qoray nambarada si sax isugu daba socda 141 142 143 144. qaabkaasi ayuu ku waday. Qaabkaasi ayaa si automatically loo buuxiyaa. Dhanka kale magacyada tusaale ahaan si caadi ayaad u qori kartaa, sida aad u qori jirtay ayaad u qoraysaa, wax dhiba ma lahan. Waxa aan automatically u buuxin karno waa data sideeda kusoo noqoto oo isla qaabkii loogu buuxinayo hadday ahaato number amaba haddii ay ahaato formulas oo aan adeegsan karno in aan ayadana sidaa u koobiyeyno. Copy paste waa samayn kartaa sel walba. Control C Control V ayaan isticmaali karnaa oo selka intaasa u nimaadno Control C aan riixno Control V ayaan dhihi karnaa. Sidoo kale haddii aad rabto waxaad isticmaali kartaa right click paste, ayadana waa isticmaali kartaa, waa isla sida iyo dokumentiyada kale.